بس جردين كحافظة على حريف تم عيال كحافظة عوك سالينا عيال كحافظة عوالك waxaad ku hona barnaamij oo tiro badan barnaamijkaas wuxuu ka sheekeynaa caawa meeshaad ku wahay waxa kamid ah karaama macnaha studio karaama ma macnaha karaama waxa la yiraahdaa sharaf iyo xaq dhor iyo wanaag iyo asturnaan karaama waxa la yiraahdaa brother ixtiraam taasna waa mid ilaahay xaqiis nooga imaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri walqad karamna bani aadama macnaha ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu bani aadam waa karaamay karamadaasna waxa kamid ah brother ilaahay uu karaamay oo anaga intii makhluuqaad ilaahay abuuray oo aan kaga dubanaa waxay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala anaga gacanteena waxaan ku cunaa gacanteena waxaan ku cabnaa iyo dharaan xiranaa ilaahay wuxuu siiyay libaas waxa la yiraahdaa dharaan xiranaa brother waana shaqaysanaa markaan shaqaynana waxaan ku shaqaynay inta shaqayn lacagtooda marsi walaha waxaan kaga duwanahay makhluuqaad kale ilaahay uu abuuray gacantooda wax kuma cabaan gacantooda wax kuma cunaan haday shaqeeyaan waa lagu shaqaystaa mooyaan brother waxay shaqeeyaan iyo wax lagu shaqaystana xabad kama oga mana qaataan taasna waa gooni waa karaamooyinka ilaahay oo nasiiyay waxaa jirta wax yiraahdo arsaaqad rizq macna qof walba adduunkan ku nool wuxuu baahan yahay rizq inuu helo arsaaqadna waxa waa noocyo badan ay leedahay ilaahay qofku jecel yahay wuxuu ka dhigaa taajir qofku neceb yahay wuxuu ka dhigaa faqiir taas ma ilaahay qofku jecel yahay wuxuu siiyay diin oo soo dhaweystay hadba qofka jecesha brother guriga waa keen leeyahay Soomaa wasaas oo kale meesha noloshaan hadda anaga ku jirno in nolosha ilaahay oo sameeyay macnaha waa tarbiyadaas maxabay waa abaabin lagu diyaarinayo inaa gashid guri fiican macnaha guri fiican waxa laga wadaa janno jannada waa gurigii waa silcadii ilaahay oo dadku ugu talgalay wanaagsan oo qalbiga fiican illa man atallaha biqalbin saliim macnaha daata qof wanaagsan oo daahir ah oo nolol wanaagsan soo sameystay oo noloshiisa wax fiican soo hormarsaday waxa galaysaa gurigaasi dad xataa waxa jiro muslimiin oo muslim ah oo gurigaasi gadaalka soo gali doona macnaha waxa naarta mar doonaan naarta markay soo maraan oo la soo cadaabo janna imaanaya macnaha waxa soo mareen brother transparency meel lahay waa soo dhaqay clean laga soo dhigay qashankii iyo qurankii laga soo dhaqay imaan doonaan jannada kuwaasna waa mu'miniintii dambiye soo gal adduunka waaya إله سبحانه وتعالى مركان وحنا أرزاقي سبضر إنه أرزاقي أرزاق إله دتك أسير وكل دوبن تسأل أي شيء لكن أرزاق دقوة إنه إله نسي أيا وحيد هاي إسلامك إله وحاجته وكو أرزاق هنتي إيو ملك إيو بقر إما تحتنم إيو وحياة بدن ددنا وحاجة إله وكو أرزاقي حكمة عقلي وحبانها دد حركة مركي ملكي قاس هنتدع سلعة سايقوله لكن عقلي حكمة إيو وحي لي المرة لكن دد حركة إله سبحانه وتعالى يقول فقر وكرجة مساكين وحبانها سنة صبولة إله وحوسي عقلي وحوسي حكمة سيدي الحكيم لقمان عليه السلام لقمان وحوها فقيرة وصبولة مسكينة لكن إلهي وحو صقر وحي بقرطوي وحي بقرها دونك معمولة يحل قاسي إني هستي ماذا ناسي يكسو دونك أنا عقلي معناها خبير وها بروفيسور وها هي حتى نكي العبد الصالح والله الخضر نبينا ما هين لكن نو نكسن وها أرزاقد وين إله أونسي عقل عقتها سنيو بقر رمضان إما تحت رمضان عاد إله أونسي ما أرزاقد وين إله نو أرزاقي أو حياته ولا أنا وين ويدي سن إسلام نمو ملقى ماذا ويدي سر لكن مالك تحاول عفمات وحب ويدستا لكن إسلام إله مسلم ملقى ماذا لهن إله لك وكسي أدو ويدي سن كورنا مركا أدو ويدي سدونا جنة إيو حكلا إله مسلم كسيدون تاسن وإله كرام إله سبحانه وتعالى دين إسلام كونسي وحسود جي كتاب كاسن وإنا آمين هذا إن كتاب كاسن وحواي ولا وح إسلام ماذا لك جر مالها الله سبحانه وتعالى مركا إسلام عن نقطة وكتاب كيس آمنتي هذا عاطى يقف الدمر إلهي وو إنه كسي كرامة ضاسنا وفضل إنه كسي دت كان عاد كجد بنته دت ككلا أرنتاسو كتاب إلهي وسود جي سبحانه وتعالى وحق جبت سورة ضم وما عاقل القدري ولا يراد سورة النساء أركميسد هذا بارت كوري هوز سورة الرجال وحل يرادو marka taasina waa fadli karaamo ilaahay oo ku siiyay oo kaga soo dejiyay samaawaatu sab'i marka ilaahay subhanahu wa ta'ala dumarkeen aad buu karaameeyay tarbiyadna anaga waana baray ilaahay subhanahu wa ta'ala waa rabbi macnaheedna waa kuriye anaga asana soo kuriyaan waa ku jirna caloosha hooyadan ilaa ka soo baxay ilaa qabrigeeda ilaa maalinta qiyaamaha waa qofkana hago oo hagaayo amarkiisna ku socdo anaga marka waxaan nahay adooma ilaahay u abuurtay oo amarkiisna ku socdo marka ilaahay amarkiisna waa taqaaniin wuxuu yahay kun fayakun macnaha noqo hor ka noqonaya wuxuu ilaahay ku dhawaaqana oo noqo hor ay ka noqdaan taas isweydiin iyo qabsi malaha sidaas ay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala gabdhaheen uu asturay wuxuu soo dejiyay suurada magaceeda la yiraahdo suurata nisaa had ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaad si fiiriso waxa arkaysa inuu gabdhaheen oo si karaameeynayo oo fadli kale oo siiyay oo rageeno xataa uu kaga fadli badjay xataa waxa jirto suurad kale oo magaceeda la yiraahdo suurat maryam waa sayyid nisaa العالمين بعد خديجة رضي الله عنها معناها وقبر إلهي فضل أوسي مريم محيات قبر مسكينة وحاسو كرسل النبي وكمد النبي دي إلهي مريم محيات قبر
oo taqiyada oo qaanitada oo sujuud badan oo ilaahay ka cabsato marin ayadoon banaan bixin oo gurigeeda aanan ka bixin oo gurigeeda fadhiso sariirteeda iska saaran oo fadhigeeda fadhiso oo gurigeeda aanan bixin oo banaan u aadin oo wareegin oo ilaahay ku arsaaqi jiray wax allaal wixii rabto maryan qof isdhibta ma ahayn maryan maysan ahayn almutabarijaata mise macnaha gabdhaha coradooda mise jirkooda wax marmariyo oo banaamaha keeno taasna waxa waaye haddii oo aad tahay qof ilaahay ka cabsado oo ilaahay taqi ah oo ilaahayna ku xiran ilaahay arsaaqadaada adigoona dhaqaaqin ayuu hortaada keenaya taasna waxaa cadeen ku ah maryan markii u soo galay nabiyullah zakariya oo yidhi inteed ka heshay maxaa yeelay wuxuu arkay gurigiisa babaay zabiib caano cambo canab moos qare wax walba oo loo baahan yahay oo laga keeni lahaa bannaanka wuxuu arkay gurigiisa yaallo markaasuu yidhi maryanay inteed ka keentay annaa laki haada markaasay tiri ina allah yarsuqu man yashaa'u bikayri xisaab ilaahay xaggiisa iiga imaadeen ilaahay qofkoo rabana wuxuu arsaaqayaa si xisaab la'aana marka walaal haddaad tahay qof asturan oo ilaahay ka cabsanayo oo gurigeedna joogto oo aanan ahayn almutabarijaat oo bannaanka aanan warwareegin oo ciyaar suuqan aanan ahayn wallaahi bilaahi tallaahi ilaahay ku arsaaqayaa adoo oo fadhiyo gurigaaga waxaan ku jirnaa anaga xilli bannaan aaditaan aan loo baahnayn qofka asigoona aadin bannaan ayuu heli karaa wax allaal wuxuu rabo gurigiisa soo fadhiyo marka walaal waxaa ku dhihi lahaa aaladdan ilaahay oona siiyey oo gacantaan ku haysano iyo noqonin midii naarta lagu gey lahaa hadda qasab ma aha waxaa arkaysa famil oo gabadhooda bannaan aan aadin habeen maalin dhahayo alxamdulilah bannaan ma aado gurigay fadhisaa laakiin qolka markay ku jirta soo xirtana tiktok ay ka hagtaa ka wadaa ugu kala kicisaa macnaha ummad dhan ayay madadaalisaa ummad dhan ay gacan ku haysaa ummad dhan ayay u raaxaysaa markaadan waxaa leedahay gabadhayda waxay joogtaa guri taasna marka waa gabar iska qaaday sharaftii iyo karaamadii iyo ciziga ilaahay oo siiyey maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo dejiyey suurad magaceeda ah haddana wuxuu soo dejiyey suurad kale oo wado magac dumar oo la yidhaahdo maryama ayadoona aanan ahayn nebi aanan ahayn rasuul waa sharafii karaam ilaahay xaggiisa ku heshay waxayna ku heshay sahro aan idinkugu sheegay sharafta iyo asturnaanta iyo akhlaaqday muujisay ilaahay subxaanahu watacaala gabdhaheen intuu sharfay sidii waalidiinta ay jecel yihiin carruurtooda inay u ekaadaan qof walba waalida adduunka haddaa fiirso wuxuu jecel yahay carruurtiisa inay u ekaadaan qaab fiican qaabkoodana ka muuqato qurux ay labis fiicanna xirtaan dadka markay hor imaanayaan ilaahay subxaanahu watacaala karaamada xirkuu nooga soo dejiyey wuxuu yidhi xijaabaa la xirto nebigeennu u soo dhiibay nebigeenna xataa marka loo soo dhiibayay laguma odhan orod magaalada aad dadkaa saas ku dheh isxijaaba may waxaa laga bilaabay gurigiisa waxaa la yidhi u sheeg xaaskaaga iyo carruurtaada inay is asturaan kadibna waxaa la yidhi usii sheeg mu'miniinta inay is asturaan maxaa yeelay gabadha asturan gabar dhibaato aanan la kulmi doonin waa maxaa yeelay qof walba markuu arko gabar asturan oo xijaabkeeda uu dheer yahay oo aanan ku dheganayn inuu dhahayo qoftan waa asturan ha laga xishoodo qoftan way asturan tahay laakiin markuu arko gabar dhar ku dhegan wadato oona iswalwalaaqayso wuxuu leeyahay tan waa ayagii waa dadka ayaga ahaa marka labiskani hadda adduunkan ka jirana waa 3 nooc qaar waa aragteen way qaawan yihiin wax ay wataanna ma laha waa shululux qaarna waxay wataan dhar oo la yidhaahdo tilmaam alwaasifa macnaa waxay ku tilmaamaysaa jirkeeda macnaa waxay ku tilmaamaysaa garoonkii aadan cadde iyo dekadii elboorka iyo madaxtooyada meesha ku taalo qaarna waxaa la yidhaahdaa almulfita linnadar macnaha mid rabto soo jiidasho waa mid ku dhows abuu macaanow intaan kuu soo baneeyey intaan kuu soo marsaday isoo fiir waa ku tuugaano abuu macaan haga jeesan waa ku baryaa meel le isoo fiiri waa ku tuuga garkaaga haysta waa mid calacalus ku dhows walaal waa ku baryaa meel hal mar le bis isoo fiiri bini'aadan haddaan nahayn waalid iyo walaal haddaan iyo xaas xataa haddii la yahay qof u ogol ma laha xaaskiisa iyo walaashiisa gabadhiisa iyo inantiisa mise mintii la dhalatayba inay baxaan rafaadaan ay silcaan mise xaryaan meelaha taagnaadaan ilaahay subxaanahu watacaala dadka raaxuu u ogol yahay gabdhaha khaasatan inay raaxaystaan oo nimac fiican ay galaan wuxuu yidhi guryihiina xataa wuxuu yidhi jooga bini'aadankeena waalidiintu waxay jecel yihiin carruurtooda gabdhaha khaasatan inay guriga joogaan ee dhahaan hooy bax iskoolka aad wax baro wax qabso inay heer fiican gaarto laakiin ragga waxay jecelnahay inaan anaga aan baxno bis waalidiinta inayna diraan ee dhahaan ord waryaa nin iska dhig is adkay waryaa wax qabso wax fiican samey taas xumaan iyo naceeb maahe waa dhiirigelin marka ilaahayna waa saas oo kale ilaahay anaga aayado badan oo nagu canaanay oo dhahay rag baa jiro balanta oofiye balanta ka soo baxo raggatooda waa canaan dumarkatoodana waa naxariis ilaahay wuxuu leeyahay dhibidii ma ogolyahaas dhibina guryahena fariista aayad ayuu soo dejiyey oo leeyahay has wareerinaa silcina anaa wax walba idin haayo maxaa yeelay haddaad gurigaaga fadhiisato oo ilaahay ka cabsato oo taqiyad aan noqoto saajidad ah oo ilaahay mar walba sujuudsan oo ducaysanayso oo tasbiixsanayso ilaahay sidoo maryam u arsaaqay ayuu adna ku arsaaqayaa
macnaha mucjizooyinkii dhici jiray oo maryam xilligeeda dhacay wixii ka dambeeyey macnaha ma aha inaysan dhicin mar dambe way istaageen ma aha ee way soconayaan macnaheedana ma aha taas inaadan banaan aadan bixin ummadda ka go'da ma aha ummadda aadan dhexgalin ummadda oo kale waxaadan aqan waxaadan barnaada iyo waxaa laga wadaa sharaftii cizigii karaamada kuu sameeyey ha ku xadgudbin ha ku ciyaarin haddana waa aragteen ilaahay subxaanahu watacaala anaga bani aadankeena wuxuu noo diyaarinaya nolol culus markaan ku leeyahay nolosha culus waxaan ka wadaa oo noo diyaarinayo nolosha xun oo foosha xun oo culus haddaan ku jirno anagoona banaanka aanan u bixin ayay gurigeena noo soo gashay macnaha waa xadiiskii nabigeena uu dhihi jiray waylun lilcarabi min sharrin qad iqtaraba macnaha wuxuu ka wadaa carabta hoogtayay u dhammaatay carab ay idin dhammaatay ba'dayeen maxaa yeelay carab kama wadin carabtaan oo carabahan caadiga ummaddan oo ka waday macnaha shar ayaa guryaha u soo gashay guriyaheen ayaa shar noo soo galay shartaasnu aragteenoo telefishin iyo laptop ma aha hadda mobilka gacanta ku wadanayo jabka gashan karna telefishinka iyo musqulaha la garnaa soo yariisa taas hadda ala marwaya marka waxa waaye fitnada la sheegay meesha ka soo bilaabatay subhanahu wa ta'ala gabdho iyo sharaf iyo karaamo waxa kamid ah hadan wuxuu yiri waqurna fi biyutikunna wala tabarrujna تبرج الجاهلية الأولى معنا قرقنا فردية هسول ولاقنا هولا بسننا السو شرحنا دي كوبي عصر الجاهلية أو كلا أنا معنا هاد وحاك صوب حنا عصر الجاهلية نبي محمد نحلقي سنوحي هاد كون إيو أفر بقولو سنة كهر أيا وحال يري قبل السلام كمركز سال صوبر التربية أو اللي يري وقت عصب أيا قال دونتان نال عصب أدقى صوصعته قريه نسكا فردية أو إلهي كعب صدق marka walaal ma ogtahay maryan ayadoo banaan bixin in arsaaqadeeda heli jirtay ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkiisna waa kun fayakun maryan arsaaqadeeda wuxuu ku heli jirtay cabsida ilaahay adigina walaal ma ogtahay inaad heli karto wax Allah la waxa tooniyeysato waxa Allah waxa u baahat in hortaad imaan karaan ma ogtahay inaad heli karto hortaadan imaanayaan markaad ilaahay ka cabsato markaad noqoto taqi inna Allah yarzuqu ma yashaa bighayri hisaab waasa soo galaysa ayadan ku qabanayso وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هداد إلهي كعبسته اسكو حرته والله أرزاق داد وحي إيمانيسا هورتادا آلدان قريين إذن كل جوغ استعمال سنسيدا قلدان أرزاق دي إذن كحرن حداب النار إذن قيني إلهينا إذن كدرن أذين محانو قدن تكون فيكون وحيل كرتا هداد إلهي اسكو حرته وحادو كويل كرتا عبسديس مركون فيكون داربته إلهي كعبسه إلهي سبحانه وتعالى وحنوسو ديج وحلي راد لباس اللباس هو در دركاس وحبا اللباس التقوى درك أنا عاوضنا معه هذا أركته قف أو ملاس والولاقيس وكان نيكنيسو وخف حشود يا عبس إلهي أنا كجرن وحالا يابله ولا لي أدو إلهي أكو كرامي وصورت كوسو دجي ومجا عن هذا الساس اللوسي مريم بر أدو كلنا مجا عيدنا لو حسي كتابك محا كودي إن أنا قلت سيدي مريم وكله محا شرفتي كرامة كقاد إلهي أكوسي محا عزي قدرنتي إلهي أكوسي أسكا قاد محا كودجي دركان محا أسوقاوسي محا بلا حشود كاردقي تنكن هذا كسي قدومنا وحا أركيسا وحا ليرهدا الديوس يا ليرهدا الديوس وحواي خفكي كقنعة حاسكيس وحي سمينيسو الديوس كياوا مركلي سويدي الديوس وحال يري ديوس وحواي هاي ما انت ديوس كارنتيس وحنتها الديوس هو الذي يتفاخر بزوجته وجمالها وأناقتها لا يحفظها من أعين الرجال ولا يصونها معناها وحواي ديوسك كان كفان naagtiisa quruxdeeda iyo qaabkeeda dadka hortooda kufaana ma taqaana soo hordhiga asxaabtiisa amal wuxuu ka dhigay zawjadiisa xaaskiisa silcad raqiis alaabo gadooyo meeshu imaanaya oo keena oo shirgareynaya asaa xataa editku ugu daraayo qeybinta iyo like iyo comment asaa ku bixinay asxaab xataa ku qabsanay dhahayo share my wife brother when you know so brother naagtiis wuxuu ka dhigay silca lil bay' macnaha wuxuu ka dhigay alaab oo la keenay macna carwa la keenay amal oo gadooya kaasa laha naagtiis oo qaabanoo timaheeda iyo jirkeeda iyo gadaalna walwalaaqayso taas ayaa la dhahaa dayuus an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qaal wuxuu yiri thalathatan qad harrama allah saddex ayaa jirto ilaahay jannada uu ka xaaraantamay xataa arki maayaan keewa kuwaas alla waxa allah waa kan khamriga cabo iyo kan caasil waalideynka iyo dayuus waxa waayo kan cidiisa ehelkiisa xumaanta ku arko oo xumaantooda arkayda soo walaaqayso ninkeenis dhar xun wadato oo barfuun soo buufisayo oo jidka magaalada soo dhaxgalayso dadka magaalada jooga baraadar u kala kicinayso oo baraadar ragga magaalada oo man iskaabulad dhan ma taqaana shidayso oo u kala kicinayso kawaalayso asna gacantii soo qabsado mise baraha bulshada keeno dhaha waatana xaaskay ku yaa ama shidantahay sawaatana ka wata tana hel ii duceeye kawdhe bash ya oo waalayso walaaqayso oo wareerinayso maxaan aan ka hadlaynin waa dhaay xaaskay u shanta go ahead man soo ku yaaca kuwaas waay khubti iyo
dayuus niman waa kaas walaa ya'samu man yusammiihi dayuuthan qofkii kaas dayuus ugu yeerin wuxuu dhaas dembi ma laha haddana waxaan arkay qof oo meeshaan soo galay xaaskiisa brother oo ninkinayso tiktok iyo social media youtube-ka anuu arkay qofkaas waxaan kan waa dayuus haddaa ka sheeg dayuusnimadiis kuwan oo kale cidigu haysta ma laha dembi ma lihi macnaha ma fahantay haahey marka hadda anaga waxa waa brother ilbaxnimadu waxay maraysaa adiga xaaskaaga meelaha maarta isku dhegan in anaga naga washaan anaga xanaajisaan saan hal saac usoo hadalno idinkana waxa waa laagta sharta adin darna bisayo labadaas door meesha ka helaysaa laakiin waxaan dhihi lahaa kuwa sheer gareynayo والله وبالله وطلع ذيك كدر ما هي لو حال يري ادالو على الخير كفاعل دمين لو ادالو على الخير كفاعل معنا خفكي خف قتل مامو خير وحول مدي هي انو سمي marka fama baalu ninka naagtis meesha ku dhiganayo meesha ku dhigana hadaad ila qaybsato macna adin waa sameysmaho naar jahannam waxa ku sugeys maanta qiiman waxa ku marka waxa adin leeyahay dadkeena meelaha taagan sheerinka iska ilaalisha maxaa yeelay sheerin wuxuu hoos imaanaya hadalkii nabigeena yiri بلغوا عني ولو آية شيرين معناها وحوالي قيبسسنا وحوالي تبليغ ضدك يا قارسينوسا ناكتان حمانتا سميسي حداد لقيبسطو آمن للصعو وبالله كو أهاتو دنبيجيدا إعاداب تيدنا اسكمت إناتيهين قفتان حدي إماتو أي سميسو فيديو أي داوضان سدح بقلو كنو قف مثل باتون كنو قف انت قفو دابطو وانت جيدل كودع لها معناها وانت قل او كرباش ايد لو كرباش لها انت قل او لو دفلها او لغراع لها ayay sameeysanaysaa dadkan marka la soco xarf walba lagu qoray xarf walba lagu soo qoray ku salaamay saana tahay barac lagu soo qoray la soco inay yihiin kuwii lagu cadaabi lahaa leegta sheerkan waa kuwii lagu soo cadaabi lahaa commentigan waa kuwii lagu sii fogay lahaa viewerska ilaa jahannam marka daad dhimatana qofka saaray malaha akaunka hadda gacantaada ku haysa waa iska tirtiri kartaa wixii video bila akhlaaq raggan oo dumarkooda waxyaabaha la soo sameeynayo ay waxa ilaa dayuusa tahay dayuusan waxa waaye qofkii wixii laga xishoonayay oo cirdigiisa loo baahnaa inuu asturo banaanka keenayo baraha bulshada waxa ku soo badanayso waxa la yiraahdaa brother ilmaanis guursana isku dhigan macnaha ayagoo isku dhigan oo dhuuqay maaragtay astaghfirullah aday macraala hada ayagoo wax xun sameeyay soo gelinaya marka waxba taas waxay leeyihiin brother iska bulada maaragtay lagu xumeeyo ma halu gubo xogaa wax maana gubanayna beema waa waanu ka celisin qarasta beema la raala hada macnaha laakiin wax waaye horta aniga ku farxeena maxaa yeelay naar jahannam ma aragtay waxa la yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis ajir oo yiri ninkii ogal naagtiisa dadka inay wax xun la hor imaato talaabo kasta ay qaadan u leeyahay brother naar jahannam guri ugu dhisoosaa macna aniga ku farxsanahay marka meeq guriga naar jahannam aku yeelo doonta abaa aadan socodka baday wareega baday brother una ninkii brother guriga dhex wareeg idinku isku dhigan soo duub maalba aragno meeq guriga ku dhisaysa imagine marka meeq talaabo ay qaaday fadhiga la musqush intaas kugu filan brother socda marka hore la socdo wada wal mar'atu idha kharajat min bab dariha naagtan haday ka baxdo gurigeeda mutadayyinatu muta'attira ayadoo isqurxisay oo dhar ku dhigan wadatay abu balaaye ah oo is carfisay wazawju raadin bidalika macnaha ninkan taas raali oo ka yahay naagtis macnaha iskaabuladii magaalada ka xanaajisay ninkeedna kulaha oo raali kaga yahay macnaheedu waxa waay allah بني لزوجها بكل قدم دار في النار ninkeeda waxaa naarta looga dhisaa talaawol ba ay qaado guri naarta looga dhisaa wax nabigeena hadda ka soo lageys faram xamar jadiid ilaa ay buulo eelay meeqa loo dhis meeqa guri saaso brother musqush la jikada kugu filan inta mar loogeynayso ay nikinayso so please sabara whatever laakiin ay hilmaamin yaa amsam waxanaaqa inuu kala diro habeen wanaagsan